أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow casharkii labaad ee PHP kooraskan oo ugu talagalay ardayda ku cusub PHP. cashar hore ayaa jiray oo ahaa requirement wixii laga rabo. marka casharkii hore halkii baan kasii wadnaa waa casharkeenii labaad. marka hore waxaan ugu ballan qaaday inaan intii requirementskii lagaga baahnaa imika inaan wixii oo dhan si aanay waxba kugu adkaan u wada fududeeyo soo dhowl karaya. Welcome back, dib kusoo noqosho wanaagsan. In this lesson, casharkan we will download and install SAM server. SAM server ayaan soo download garaysanaa oo install garaysanaa. SAM server wuxuu taagan yahay horta SAM server waa web server. waa kii xogta web serverkii weeyaan. isaga bilaa web server ahaan PHP shaqayn maayo oo maaha dee sida HTML kii CSS kii maaha oo ayar intaad qortid codekii .css ama .html ku dhameynaysid maaha. laakiin tan .php macala dad ku dhamaysid waa inaad web server haysataa. web server keenana SAM baa ugu caansan. SAM baan isticmaalna. SAM waxaa loo soo gaabiyey cross platform Apache, MySQL, PHP, Perl. marka cross platform waxaa looga jeedaa horta imika qof kasta wuxuu isticmaalay. anigu Windows baan isticmaalayaa, adigu laga yaabo Windows inaad isticmaashid, qof kale Mac OS inuu isticmaalo, qof kale Linux isticmaalo. boqolkiiba 90 Windowskii adduunka caalamka boqolkiiba 90 Windows baa la isticmaalaa. boqolkiiba 8 meelahana waxaa la isticmaalaa Mac OS, boqolkiiba 2 Linux la isticmaalaa. marka midda doontid isticmaal waa soo download garaysan kartaa SAM serverkaas. way markii koowaad ee la soo saaray wuxuu ahaa May 2022 May 22 17 sano kahor ayaa la soo saaray. way haddaba imkaan download garayno. sidee baa loo download garaynayaa? google-kii markaad geysid SAM server ku qor. SAM kaliya markaad ku qortid wuxuu noo soo saarayaa linkiyo badan. kadib linkiga ugu sareeya ku dhufo. markuu sida noogu soo baxay SAM wuxuu taagay Apache, Myriad database oo MySQL kia PHP Perl. markaas hoos markaa soo socotid saddexdii version ba kala jira: Windows, Linux iyo Mac OS. marka tahay haddaad Windows tahay ku dhufo, haddaad Linux tahay Linux ku dhufo, haddaad Mac OS tahay Mac OS ku dhufo. markaan Windows ma isticmaalaya, Windows kan ku dhufanaya. IDM baan kusoo download garaysanayaa. marka IDM kii aan kusoo download garaysanayaa ka u socdaa. taasoo soo baxaysa aware SAM. Your download will start automatically if you does not click here. marka uu noo download garaysanayaa iska sugayna. noo socdaa waan download garaynaa. dhowr jeer ayaan ka istaajiyay si aan videoga u dheeraan. marka waan sii wadaynaa. imkan waa ka 99%. kadib halkii kugu soo download garaysmay tag. SAM waa ka Windows, double click. wataa inoo soo baxday. kadib waxaan odhanaa next waan sii odhanaa. halkee buu noo yaalayaa? siduu noo yaala sida caadi. next waan odhanaa. next imku download garaynaya, imku install garaynaya. marka SAM is easy to install. Apache distribution contain MySQL, PHP, Perl. marka aad u fudud buu leeyahay SAM.
intuu download garay intuu install gareynayna waan noo sii qabanay video si aanu aad ugu sii dheeraan marka aad buu fududii isku day imka soo download garaysa adigu ka uu install garaysmay imka hadaba xarana intii ugu dambeysay maray in yar baa hadhay iska sugeynaa inta yar hadaba waka uu noo dhamaaday finish baa nasa kabacdi uu noo soo baxaya language-ka save the Ingiriisi Mareykan English language kabacdi waan sugeynaa hadaba wakaas uu noo soo baxay hadaba waxaa nasa start tan start okay portiyadu waa inay sidaas koo qoraan variety iyo porti hadaba si aad u soo kicsid imka kale imka MySQL-kaas admin-kaas aad taabanaysaa uu ku soo baxaya Chrome-kaagii ama Firefox-kii kaad isticmaalisay ayuu kugu soo baxaya markaan admin-taa ku dhufanay haddii uu sidan kugu soo baxay oo localhost phpMyAdmin ay halkaas oo kale ku soo baxday database-keeni aan galnay sax si fiican baad ugu install garaysa sidaa weeyaan halkaas oo cashirku noo joogayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.